السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا قالي وان إذن سلامي كسر هذا جنال كيك فيه مشو مركور واتكم هاتسنتين سيدة وناكسن وقروح ذو بدن أديل سعطان واد جنال كيك وحرنتهين وادنكم هاتسنتين أصحابي ما أنتم حندين وذا سيدة وفضد oo timaha loo dheereyn karo ama qaabka timahaaga hadii ay gaagaaban yihiin ama ay yihiin timo aanan bixin oo kala qaabka u dheereysan karto ee kugu noqon karaan timo dheer oo qurux badan ayaa insha Allah maanta idin la wadaagayaa fiidiyogan waa codsi iga yimid asxaabteeda insha Allah maanta ayaan ii suurta gashay in aan idin la wadaago halkan waxa ku haystaa basal cad waaye sidaas u soo jarjaray waad u jeedaan waa basal qof kasta heli karo meel walba joogtid basal waad heli kartaa marka insha Allah fiidiyogeena basashaas iyo qaabka loo isticmaali lahaa insha Allah waa soo jarjaray laba siyaabood iyo laba qaabo waad u isticmaali kartaa insha Allah qaabka ugu horeeyo ayaa idin la wadaagayaa hadda waxaan rabaa inaan soo kariyo basashi marka insha Allah jikada tageena qaabkan u sameeynayo ayaa insha Allah arkeena hadda waxa imaan jikada digsigana waxa ku shubanaynaa koob oo biyo ah biyaha caadiga waaye koobkan biyahan ku shubanaynaa waxaan ku darsanaynaa basasheeni oo sidaas u soo jarjaray basasha intay xoogaa nooga soo karta ayaa sugi doonaa insha Allah adi hadii aad rabtid waa badsan kartaa ama inta kugu filan ayaad sameysanaysaa hadii aad talaajad ama fridge haysatid wax badan ayaad sameysan kartaa kadibna maalinba wax yar aad ka marsan kartaa insha Allah hadii aadan talaaji email aad gashatid aadan haysanin waxa sameynaysaa inta kugu filan markaas ayaad karsanaysaa si maxay ahayd aysan kaaga halaabin hadda basasheen ayaa sugina intay nooga soo bislaanayso ee nooga soo kareyso hadda u jeedaan biyaha way cad yihiin basashana way caddahay yacni waxaan rabnaa basasha dhaxdeeda yacni inay si fiican u bislaato sida cuntada kale u bislaato marka biyahaas insha Allah u baahanahay oo aan rabnaa inaan marsano intay basasha nooga soo kareyso sida aan rabno in nooga soo noqonayso ayaan sugeynaa insha Allah asxaabay alaabtan hadii ay isticmaashaan ma sha Allah faa'iidooyin weyn ayaad ka gaareysaan timaha way ku qurxinaysaa timahaaga ma sha Allah dheer dhabarkay ka dagaysaa hadii aad mar walba daa'imatid isbuuci laba jeer hadii alaabtan soo warsatid ma sha Allah inaba caadi ma waa laga sheekeynaa timahaaga xariir ay ku noqonayaan sidoo kale asxaabay qaabka labaad oo aan rabo inaan idin tusiyo oo loo sameeysan karo basasha aad ay u fududahay qaabkan hadda aan tusinayn waa u sameeysan kartaa qaabka kale soo socdana waad u sameeysan kartaa yacni sida ku fudud ayaan ka wada inaa u sameeysatid marka insha Allah asxaabteeda soo baroobeeya idin leeyahay isbuuci laba jeer soo marsada insha Allah timahaaga si ay kugu qurux badnaadaan ee kugu noqdaan timo dhaadheer adiga lagaaga baahan yahay mar walbo gabaray inaa ku dadaasho quruxda iyo bilicda timahaaga insha Allah asxaabay hindida u jeediin hindida timahooda way jilicsan yihiin haddana waxay isticmaalaan basal oo sidaan ay u sameystaan kadibna timahooda ay marsadaan natiijooyin aad u weyn way ka gaareen ma sha Allah anagana waxaan jecelnahay inay timaha noo qurux badnaadaan noo dheeraadaan sidii hindidoo kale ee noo noqdaan insha Allah waan inaan ku dadaalno oo mar walba aan ka shaqeyno bilicda iyo quruxda jirkeena ama timaheena labadaba marka insha Allah hadda waxaad waa u jeedaan xoogaa way noo soo karkareysaa si fiican inay u bislaataa rabaa oo biyaha maadaama biyaha aan isticmaaleyno biyaha waxaan rabnaa inay si fiican u bislaato oo biyo nuxur leh biyo tinta noo dheereynaa ee noo noqoto insha Allah intay nooga soo bislaanayso xoogaa waa sugeynaa ما شاء الله حوجا وحير وحامد بسش إنه وحير وشير إلى ذهي هدي أديك عشير كاس بدنا عيشت وحقدر سكرتها بيها أبحة المركي آكر ستيت كدب أو بيها آكر ميرتد أو بيها يكون قبوبان أي قدر سنة سا وحير أو بيها أبحة ستين تمحيه تو هدي الشركة دي يسد أو شركة أو بسش شواي هدي أدر منه سيدانو كالواسم سكرتها وادنا مرسن كرتها marka asxaabay waa kaas sidaas u soo karkareysa hadii aad rabtid waxa sameey kartaa sida markay u soo karkarto saliid xabad soodada ku darsan kartaa ama xulbad ma sha Allah iyadana hadii inta isku darsatid timahaaga ma sha Allah quruxay kugu soo baxayaan
waxaan ogaatiin mar walbo in ay u baahan yihiin timaha in faraha lagu haayo, mar walba la shanleeyo, mar walba la hagaajiyo, mar walba saliido dabiici iyo waxyaabaha timaha dheereeyo, waxyaabaha jajabka ilaaliyo la mariyo. haddii aadan timaha ku dadaalin waa dareemi kartiin ma qurux badnaanayaan sidii la rabeen kuma noqonayo. mar walbo ku dadaala inaad timihiina yacni aad ku dadaashiin oo bilicda timaha iyo maxay soo muuqdaan si timaha idinkugu qurux badnaadaan. marka insha Allah waxaan sameynaynaa markay noo soo koro kadib waxaan ku shubanaynaa caagadan aan ku shubanaynaa. adinka haddii caagadan haddii aadan haysanin waxaa jirto caagadaha markii ay ka dhamaadaan waxyaabaha guriga lagu dhaqo kale ayaa isticmaali kartaa. caagadan hadda ani tana usoo gatay wax badan ma qaali ma $1 leela gadaa. waakaas furkaas ay leedahay, halkaana waa halka biyaha kasoo baxayeen. maasha Allah caagadaana ku shubanaysaa tinta si fiican u kala jideynay waa soo shanleynay kadibna jid walbo oo soo jideysay ayaa ku soo buufinaysaa sidii bixi u buufsamay barfuunka camal. halkaas koraa ka riixaysaa kadibna si fiican ugu soo masaajeynaysaa ilaa timaha iska si fiican iskugu milmaan. salka hoose ayaana loo baahan yahay inaad mar walba marsatid. tinta kore haddii aad marsatid wax faa'iido ma sameynayso. mar walba waxaa la rabaa halka ee tinta ka soo baxdo oo ah salka. haddii saliid aad marsanaysid, haddii maxay hayto nafaqo aad marsanaysid, haddii aad sidaan oo kale basal aad u karsanaysid, wax walba oo aad rabtid inay tintaada kuugu qurux badnaadaan ama aad marsatid waa inaad salka hoose ee tinta aad ku masaajeysid si waxaas ay kuugu noqdaan wax faa'iido leh oo tintaada kuugu qurxiyo. marka insha Allah sidaas aad sameynaysiin tinta si fiican ugu masaajeynaysiin kadibna waa iska dhaqaysiin insha Allah. faa'iidooyin aad u weyn inaad ka gaari doontaan ayaan rajeynayaa. soo tijaabiya asxaabteeda ilana soo wadaaga natiijooyinka aad ka gaartaan iyo sidii markaas ay timaha idiin noqdaan. hadda waa kan basasheeni weli way noo saaran tahay si fiican uma soo bislaanin. basasha waxaa moodaa inay adag tahay ilaa ay ka jilacdo ayaan sugaynaa. maasha Allah caraf waaye laakiin hadda waxaa moodaa markaad karisid in ay urta badan iyo shiirka iyo waxaas ay ka yaraanayso. haddii ayada oo basashiyo caadi ah aad samaysatid ama aad shiidid ama qaab kale aad u samaysatid urkeeda aad ayuu u badan yahay. waa qaabka labaad oo rab inaan idin tusiyo. hadda sidaa markaa u karisiid basashi way soo carfaysaa wixii markaas shiirka iyo urka ee laheedaa ka yaraanayaan. markaa timaha marsatid wax badan ma ka dareemaysid. marka qaabkaana aad u fiican tahay. marka insha Allah asxaabteeda labada qaabkan iyo qaabka kale oo idin tusi doonaba labadaba soo baroobe insha Allah. waxaan aad u jeclahay oo aad u rajeynayaa inaan natiijo aad u weyn ka gaari doontaan oo timahana ay idin bixi doonaan ama aad idinkugu dheeraad doonaan insha Allah. hadda waa miiranaynaa insha Allah. waxaan ku miiranaynaa waa ujeedaan hadda way karsantay. basashan xataa haddii aad miirtid iskama tuuraysid. haddaa rabtid waa shiidan kartaa waxyaabo kale ayaa ku samaysan kartaa. haddii kalena waa iska daadi kartaa dhib ma lahan. hadda waa noo soo diyaaraya noo soo noqoto waa miiranaynaa. baquligaana ku miiranaynaa insha Allah. halkaana ku miiranaynaa asxaabteyda. waa ujeedaan biyaha way isbedeleen waxay u ekaadeen basal camal. biyaha marka hore cad ee ahaayeen laakiin hadda waa ujeedaan way isbedeleen waxay u ekaadeen sidii basasha oo kale. basasha nuxurkeeda ayaa aad u dhexgalay. marka insha Allah biyahaas waa waxaa u baahanahay hadda ma ahanin basasha qobkeeda ma ahan. marka asxaabteeda waa ujeedaan hadda waa soo miiranay. marka hore koob biyo ayaan ku shubay laakiin hadda ujeedaa markay karsantay oo si fiican ay u karsantay biyihii haaf biyo ayay noqdeen. maasha Allah haafkan biyaha sugayna intuu noogu qaboobo. markuu noo qaboobo kadib ayaa isku soo noqonaynaa. hadda wuu noo soo qaboobay waa isku soo noqonay. caagadeeni ayaan soo qaatay. caagadeeni ayaan ku shubanaynaa insha Allah. waa kaasa wax yaraa ka soo haray caagadina waan ku shubay. marka intaan oo kale kugu filan halka mar aad marsanaysid caagadan oo buuxda hadaa isticmaashi maasha Allah aaday ku qurux badnaanaysaa timahaaga.
waa ujeedaan sidaasay u taalaa halkaasaa ka furanaysaa tinta meel walba oo timahaaga aad ka jideysay ayaa saas ugu waxeynaysaa maasha allah ujeedaan sidii wuxuu usoo baxaya barfuunkii oo kale saasaa sameynaysaa insha allah natiijo aada u weyn inaad ka gaari doontaan ayaan rajeynayaa qaaliyaad soo baroobay insha allah wax walba oo aniga aan sameysanayo ama wax walba aniga aan faa'iidooyin ka gaarin insha allah waxaan jeclaa inaan idinla wadaago haddana waxaan idin tusinayaa qaabka labaad oo aan u sameysanayno basasheeni maadaama hadda qaabkan aan idin tusiyo qaabka kale waan idin sharaxayaa si aad u sameysataan insha allah waxaa soo qaadanaysaan basasha qobka ayaa ka fiiqaysiin kadibna waxaa sameynaysaan geedka karootada lagu hoolaa soo qaadane kadibna waad ku hooleysaa laba xabo oo basal aa sameysanaysaa maadaama hal xabo hadaa karisid biyo badan aa ku karsan kartaa laakiin markaa hooshid ama aa shiidid hal xabad way kugu yaraane maadaama aa rabtid qolofta iyo waxyaabaha basasha qubkeeda inaa ka saartid marka waxay noqonaysaa inaa laba xabo basal camal aa sameysid haddii timahaaga ay badan yihiinna waa ka badsanee haddii ay yar yihiinna waa ka yareysan kartaa markaa basasha kusoo hooshid geedka karootada lagu hoolo waxaa sameynaysaa waxaa soo qaadanaysaa kan aan hadda ku miiranaynay oo kale kadibna waxaa sameynaya waa ku miiraysaa qolofta dhanaa iska bixine biyihii ayaa isticmaalaysaa markaa sidaas u sameysid xoogaa biyaha waxaa moodaa inay shiirayaan haddii aysan ku dhibeynin waa marsan kartaa haddii ay ku dhibayaanna waxaa sameynaysaa biyaha ubaxa ayaad ku darsanaysaa insha allah kadibna timaha ayaad ku masaajeynaysaa mar walbana ku dadaal timahaaga inaad biyo qabow iskaga dhaqdid si ay kugu qurux badnaadaan biyaha kulul jirkana uma fiicno timahana uma fiicno sidaasaa insha allah idinkula talinaya asxaabteeda qaaliga ah waadna ku mahadsantihiin sida wanaagsan iyo sida quruxda badan leh aada ugu tixantihiin janalkeyga sida wanaagsan aa fariimihiina igu soo gudbisaan fadlan haddii aada igu cusub tahay sabskraibta ha iloobin gambaleelka riix si aysan kuu dhaafin fiideoyada soo socda insha allah haddii uu ku cajibi fiideogan fadlan lasii sheergaray ehelkaaga asxaabtaada iyo familkaaga commenti qurux badan hoos iigu reeb waadna ku mahadsan tahay la socodka ay la socotid sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu